halkan waa saldhigga degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. waxaa lagu soo bandhigay 3 nin oo qiraatay inay ka mid ahaayeen al-shabaab. 5 sano ee u dambeysay ayay u qaabilsanaayeen dilalka degmadan ka dhici jiray. magacayga waxaa ah Shucayb Cabdullaahi Xaaji, magac oo ka tirsan xarakada al-shabaab. magacayga afgarashada waxaa waaye Axmed, oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir. degmada Wadajir qaasatan waxa aan shaqo gacanteeda ku qabto waxaa waaye mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo looqan oo isbitaal Madiina ka mid ah. tan hadda oo dawladda ugu dambeysay ay soo qabatana waxaa mid oo siliga Ameerikaanka ah. anoo Ismaaciil Maxamed Aweys oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo magaciina naasta leeyahay yaqaan Yaxye ayaan u xil saarnaa degmada Wadajir iyo Dharkiinley. fal ayaan ka fulir rabnay meesha beerta jaadka Islaan Jaadooley oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya. markii oo noo dhici waayay kadibna oo naga ka tibinay kadibna waa ayaan ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta noogu dhigeen. kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana cafis iyo dawladda Soomaaliyeed oo falkan ugu soo qabatay idina cafis ayaa weydiisana. magacaygu waa Maxamed Usmaan Macalin Axmed, kuna magac dheer oo la yaqaan Abdiweli, kuna dhashay Madiino gaar ahaan degmada Wadajir. waxaa dhahay anigoo ka tirsanaa in muddo xarakada al-shabaab una qaabilsanaa u kala gudbinta hubka. maanta waa gacanta ku jiro dawladda Soomaaliya, gacanteeda ku jiro. waxaan ka codsanaa hubkaas aan u geen jiray eheladii lagu dhibaateeyey, dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay cafiyaan. waxaa lagu soo qabtay iyaga oo dil u geysan raba mid ka mid ah ergooyinkii xildhibaanada soo doortay xildhibaanada dawladda Soomaaliya. waxaan idin sheegayaa in raggaas oo aysan ay dil rabeen nafteeda u soo duuleen. waxaan idin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay ama hadu celinayaa. waxaan rabaa in micnaha ii sheeg meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. odagayga waa boolis xooma haysayo 7 caruur aan korsanayay, marduuf jaad aan gadaayay, nafteeda u soo duuleen in meel ay taala rabo. madaxweynaha uu sheegaya rasuul wasaaraha uu sheegaya baaq dheer aan diraya wax la qabto. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Tuulax ayaa ka hadlay dhacdadan. aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidankii islaamaha amniga oo runtii ku guuleystay inay nimankan dhagarqabayaasha ah oo ku dhex dhuumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan. waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo aan hadda ku raad joogno, ayaguna ay warbixinadii ku habboonaa islaamaha amnigu ay wareysteen. sida aad arkaysaanna way qiranayaan. gabadhiina ayada hadashay oo runtii aan aad uga calxumaanayno qadarka, laakiin waqtigeeda wax ka dhinna. aad iyo aad uga mahadcelinahay islaamaha amniga, maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliiska gobolka iyo kullina waxaan ku dadaalaynaa sidii aan nimankan cadowga wax uga qaban lahayn. way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca, laakiin dadaalku ma yara. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa wada howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka waayihii u dambeeyay. hase haatee mararka qaar waxaa dhaca falal ammaanka lid ku ah taa oo saameyn badan ku yeelata dadka ku nool magaalada Muqdisho. Zakariya Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.